السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل تهبون داود أيال ملك استوى أن نقل سعتان برنامج كان ما أنت إدين هنا وحكوا سابسين هاي أنا يرى كالين تأي كل هذا هاي دلك يدبر ديسكيس برنامج كسوي شيء دون أبى سمرتي يقع دكتور أحمد سلفي أرمح صومالي ده إن بدن دراسية دكتور أحمد سولو الكود وأنا قاسم دوما سنتا ومع سنتا وكعلم هالعناية قابلات هذا يسولو إنت هذا إنتبه ما كوجه الرئيس بل كالين تأي كل يهين dhalinyaradu dalka dib u dhiskiisa amaba dhalinyarada awoodda ay leeyihiin iyo dad noo qeexay aad baad u mahadsantahay qaasino dhalinyaradu horta waxa weeye waa door muhiim ah dhan walba oo nolosha ku saabsan hadii dawlad tahay yani populationka sax waa asaaska nolosha dadka markaas ay la nool yihiin wax walba inay horseedaan hadday dhan diin tahay ayagaa laga rabaa inay dadkii tawjiihiyaan dadkii maarta wanaagga faraan wax kasta oo dadka ka qaldan inay ayaga u sheegaan isla markaas dhalinyarada maanta joogto waxa weeyaan inta badan waxay u badan yihiin aqoon-yahano waxa bartay dhan walba ka dhisan waxaa la rabaa marka inay isgarabsadaan ururo yacni isku xiran samaystaan halka wax ka qaldan yihiin mar walbo ay cabiri karaan ayagoo maaragtaa qabiil aanan midna u fiirinaynin ayagoo group dadka aan u fiirinaynin laakiin waxaa loo baahan yahay dhalinyaradu in ay ogaadaan doorka muhiimka oo ay leeyihiin taa aad carabka ku dhifatay dhalinyaradu door muhiim ay leeyihiin waa run laakiin waxay ku milmeen intooda badan waa dad wax bartay qabiilkii bay ku milmeen iyo qabyaaladii sidee ay qaran u dhistaanba intooda badan kuma fikiraan see caqabada xal looga heli karaa balse caqabadahaas qaasina waxaa weeye horaan waxaan u yiri virus baa Soomaaliya ku habsaday qabyaaladaysan si fiican viruskii ku habsaday waagii burburkii Soomaaliya weli effective waa jira si fiican waa qabyaaladu waxa weeyaan nabi sallallahu alayhi wasallam uu yiri dacuuha fa innaha mutim yani waa wasaq qurun ka tagaan ku warayso waa virus oo kale sax virus asaga dhalinyaro badan oo ama dad fara badan oo xilligaasi virus asaga Soomaaliya ka soo qaaday baa qurbihii la aaday sax qurbihii bay halka ay ka sii shidayaan oo viruska bay sii faafinayaan marka waxaan oran lahaa dhalinyarada maanta Soomaaliya joogta ama qurbahaba joogta in ay iska hilmaamaan cudurka noocaas oo kale qabyaalada ah waa cudure waana laga soo kabanayaa hadda Soomaalidu inta badan way soo kabanayaan cudurka asaga way ka soo kabanayaan aad iyo aad isla qodobkaas dawladnimada waxaa la yidhahdaa dalka marka horta guud ahaan la qiimeeyo waxaa la yidhahdaa 75 baa dhalinyara haddana kaalimahoodii hadday tahay dhankii waxbarashada inta badan waxaa la yidhahdaa waxbarashada waa la dhaliilaa waxaa la yidhahdaa buug sito weeye oo waraaqoon baa la wataaye aqoon xitaa lama xambaara dadku yidhahdaan oo dadka aad marka maaragtay laysu sii dhaba galo aqoontii la bartay ee dadku bartay indifaaceedii dadka kama muuqda iyo dalkii ma waxaynu dhahnaa waa tayadarro aqooneed mise waa karti xumo waxa weeyaan karti xumana waa la dhihi karaa dee waxa weeye aqoonta haddii ilaahay barakada ka qaadana tii barakada waa ka qaadantaa waa aysan quality lahayn waa quality lahayn oo waxa weeyaan ay qabyaalad iyo qurun iyo musuqmaasuq ay tahay qofkii aqoontiisii ma muuqanayso inuu wax tarana kuma dhiiranayo waxa ka maqan يعني waxa weeyaan kalsoonidii nafta ayaa ka maqan oo hadii wax bartay wuxuu isleeyahay ama qabiil ahaan wax lagu ataagaraya ama qabiil ahaan ma aad loo haslo ugu dhigaa wixii lagu barto aqoontii uu leeyahay asagii waa marka laftiisii baa jiran oo baahan aqoontii uu bartay meeshu iskaga daweyn lahaa cudur bay noqotay marka meel uu iskaga daaweeyo ma lahan in cudurkaas la daaweeyo maahan sidaas awgeed marka hoos dhac waa ku imaan aad iyo aad ma santa waddanku wuxuu yahay maamul goboleedaha loo kala qaybqaybay siyaabo kala duwan baa sababihii loo sameeyay loo fasiraa hadda waxaa ku dheeraan maayo qaar baa waxaa yidhahdaan dadku waxay u saadaaliyaan maamul goboleedadaba in loo sameeyey inaan dowladnimo ka hirgelin oo nin waliba madaxweyne yahay isku soo duuduubo caqabadda dowladnimada inta badan waa maamul goboleedada maamul goboleedadiina waxay madalaha la taagan yihiin oo dadka u sheegaan inay daacad yihiin دا أفكار واحد لقى شيء ده يفعل واحد لقى قمر يعني اسمه حال كده مية بتصنع قاسنا هو ما سنتهاي ارتعرفت أيضا برنامج أنا والله بجرا ونبحي أي حتى الرب مركي سيدا محلوك على قيبيني دم بعد لقاها صح دمت لقاها أنا وإحنا هراي النص ومرتين وإحنا ما أنتي تاجني
يعني إنه من والبجوني سبوسه من والبو وحسن هين وأصل اسمه إن يبعتها أي نقصي ديراته بوجود هذا حي لكن ما أنت واحد مدة إن وحي أنا يسوى أفجرني ويسوى ضمانية صح مركا ما من قبل ديدا أنت بدل حرجينا يعني أفكار بروح كود إيمان دونه ليس أفكار دونه أنا صار ذا كوي قدام بي شركة قدام بي سوماليا تدرس مرابي أفيا تطوي تري قدام بي حالة هذا وقام أسكت الصبح لكن تذكر حاليا مو فشل قارن حاليا مو فشل اسكو صوت تطوب حالات هذا تاع دولة إيمان قولة ده سيد سادة الإنسان waxaan saadaalinayaa si fiican wax fiican inay ka soo baxaan oo isfaham fiican oo ka soo dhaxbaxo dawladda iyo maamulka goboleedyada dawladduna dee waxa weeye xilliga hadda waqtigeeda uu soo gaabanayo qaasina wadaan tusaale yar ku siiyo xilliga dhalinyarada la yahay ee dabaasha la baranayo soomaalida hore waxaa la dhihi jirnay dabaal waa garab waana gacan saar garabka meelaha garabka lagu dabaal bartaayo waxa weeye si fiican gacan saar waa mid labada gacmood saar awood baad isticmaalaysaa xoog baad biyaha u goynaysaa marka qolyahan hadda dawladda Soomaaliya ee siyaasadda hagayo xilliyadii hore ay cusbaayeen ama 3 sano oo horeysa baan iraado dabaal waa garab ku jireen laakiin xilliyadan dambe dabaal joogto waxa la yiraahdaa dabaal joogtada waxa weeye yani waa wax u safahmi karin qofka banaanka ka taagan inaad taagantu moodaya waxa siyaasadii in yani la xasiliyo oo la yiraahdo yani wax la isticmaalo كل باب وحديرات. سياسة. أنت بدن برنامجين نقوم أيضا برا السياسات لكن دلك العدد يسا مر قار إلا سوها القاعدة مهمة. حالة دلكو بقيميس. دولة هذا هكذا دلك فيلا الصومالي شوكتنا دلك قرار دليلان. قراوي مهم بليه أنا وحيد هذا مدة دولة هذا بعد ثلاث. أديك أردت هذا كل عدد دولة يقابل تلقود. qaabka dalka wado runtii aragtideeda aad baan anigu u sabab gareeyaa meel fiican bayna ku socotaa meesha ay soo gaartayna dee qof kasta arkayo maanta hadii Soomaali is eedeynayso fiiri waxa meel laga fiiriyaa sax meesha la soo gaarsiiyay waxa loo qabtay waxaana la qabtay aan oran maayo sax laakiin pointiga hadda u dambeeyo yaa laga fiiriyaa sax marba hadii aniga aan is eedeynin oo isleenahay hebel baa sidan yeelay iyo hebel baa sidan yeelay ee aanan eedeyninin dawlad hebel baa saana yeeshay aadiya awal waxaan soo maray dawlad hebel fargelin ugu haysay dawlad hebel saana yeeshay baan dhigi jirno cawaadkeena iyo calacalkeena meel walba u yaal caalamka dhan buu yaal laakiin maanta nin hebel ah oo walaalka ahaad eedeynaysa adaniyo sidan iga daa sidan sax maaha wariso kana wada hadalnay magad qaranimada wada qaadno sheekada mar haday halkaas marayso dee way soo watay waxa way meel fiican ee maraysa gacmihi shisheeye waxa way awal direct ba fargelin loo wahay hadda in direct weeyaan wuxuu ugu baaqay marka waa guul loo dhix karo يعني هوشان قول بلد قاعد ها سيدو أرتام من قبلتها قدومي قبلتها سويقا نبلغنيش دي أرنتاس هو أرنتي عنكو يري أي حد أنا ريب ها وحاويات يقف كحصنا أنا دوي اسمه ده دباتي كينيسا أم كلا أمر قادش كينيسا مركا وإحنا لو طلق ليه تاسم ويسوع أكتر ما يساوي وصل مالذ أبو إسكرم دونا إن شاء الله بإذن الله الكريم هذه أدبان كعجم هذا اللي فكر كسيلم كار يطلعين كبوا مناسب وقدامين ذلكم حقل دونا كذا كلا جوجا Soomaalidu ku taban saxaafadda Ingiriiska fariinta waxaan u dirayaa Soomaalida dhamaan meel kasto ay joogaan ba marka hore mar walba waxaan soo dardaarmaynaa xabsida Ilaahay subhanahu wa ta'ala meel kasto joogtaanba xagga dhanka siyaasadaha iyo arrimaha maanta socdana inay dadku ka noqdaan cadaalad oo cidna aysan qabiil ku sabood gareynin cidna aysan group ku sabood gareynin ku sabood gareeyaan dalkan ya way adagta qof xididkii qabiilka ku baxay ha marka yani ma hadii la badiyaan isleeyahay macnaha advance hadii la badiyo sax oo waanadii wacyigelinta la badiyo dadka marka dambe wixii way ka soo yaraan ku baraarugayaan marka laga madaalay waa lagu wadayaa mar walba in ay dadka qabiyaalada dhinac iska dhigaan ay fiiriyaan qaranimada iyo qofka wax u taraya inay fiiriyaan taasan qolo tartaamay dhamaan aad baad u mahadsantahay Dr. Axmed aad baan kaaga mahadcelinayaa runtii soo jeedintaada quruxda badan iyo barnaamijka falaqeyntaada intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono في أمان الله.